barnaamijka dhaqo dheefso ayaa sidii loogu baahnaa uga hirgalay degmada Sagag. barnaamijkan oo ah mid lagu horumarinayo dhaqashada xoolaha, digaaga iyo kobcinta wax soo saarka malabka ayaa iskaashatada malabka ee Farjano ee degmada Sagag ay sidii loogu baahnaa uga faa'iideysteen. Haddaba waxaanu warbixin naga siiyay qaabka uu u dhaqdo shinnida mudane Mahad Maxamed Maxamed oo ah madaxa iskaashatada wax soo saarka malabka Farjano ee degmadaasi Sagag. mashruucan kada diyaarintiisa aniga ayaa abaabulay oo isku day inaan sameeyo aan igu dhiirigeliyay maamulka degmada xafiiska maadaama oo barnaamij uu jiro dhaqo oo dheefso uu jiro ayaa igu baraarujiyay iyaguna inaan amguna aan sameeyo iyaguna iga caawiyay oo gaaguriha iyo qayb noocaas siiyay xafiiska degmo isla markaasna waxa isna dhinaciisa iga caawiyay xafiiska dowladdeegaanka ee xoolaha gaaguraha hadda waxa weeyaan 22 gaagurood ayaa meesha diyaar ku ah 22 gaagurood waxaan ugu talagalay inaan 22 ay malab aan geliyo oo yeeshanida aan geliyo laakiin hadda waxa ku jirta muddo 6 bilood ma hadda aan shaqeynayna mashruucu shaqeynayay labadii 3 bilood ugu dambeysay inaan beera ay noqotay inaan gelino yeeshanida aan geliyo 4 ba hadda igu jira waxaan ku rajaynayaa marka inaan 22 kana aan geliyo bisha gudaheeda adigu hadii ay isu galasho 2 bilood gudahood inaan geliyo ayaan talagalkaygu yahay malabka horta ilaahay baa amaanay shay sidiis ilaahay malabka quraankiisa ku sheegay oo la amaanay weey faa'iidada uu ilaahayna ilaahay baa sheegay rasuulkiisa baa sheegay faa'iido badan buu ummadda u leeyahay carruurta iyo dadka u leeyahay dhinaca kale wax soo saarkana faa'iido ilaahay wal faa'iido ilaahay hadda degmadanada kale waxa kiilooga waxa laga siiyaa 800 riyaal baa laga siiyaa hal kiilo yaa laga siiyaa 800 riyaal wuxuu noqonayaa gaagurahaas markii aagayga aan fiirino hadii malabkeeda uu si fiican isu gaaro inay dhaqaale badan oo ka soo baxo reer lagu kabo reer in lagu kabo rajada aan qabnaanay aanu sabanay inaan reer ku kabno annaguna aan ka faa'iideysano ummadana aan uga faa'iideysano iyaduna ay ka faa'iideysto intay nagu daydaan mashruucan kala dadka iyo bulshada ay ku daydato in laga faa'iideystaan ugu talagalnaba kuwa tusaale ahaan baan tan u bilow inuu degmada iyo dadkeedu ay nagu tusaale qaataan gobolkuna uu nagu tusaale qaato degmooyin kale ay ka tusaale qaataan yaan ugu talagalay